kusoo dhawaad musalsalkii hooyo lagu dhibaateeyay qaybtiisa labaad haddii markii ugu horeysay soo muuqato channelkan waxaan ka codsanayna inaad subscribe noo saarto sidoo kale gambaraka aad furto si ay kusoo gaaraan muuqaaladeena sidoo kale like noo saar videogan adigoo mahadsan कब सांस ठहर जाए waa kuwana saddexdooda isla socda maamada waxaa laga keenay isbitaal ayaa laga keenay haatan waxaa loo wadaa gurigeeda laakiin ninkan maamada waxaa u maleysaa xogaa inuu ka helay guri ayuu keenay kadib gabadhi kale wuxuu weydiinaya gabadhiisa maaragtay uu leeyahay kadib wax leedahay ma arkin aniga way baxday intee aada ayuu leeyahay ilaa asaa mar biximo sidii u baxday musoo laaban asaa irida ka soo xiray oo banaanka soo tuuray aadin intaas yaratay asaa hadda ayuu soo xasuusay in gabadhiisa uu banaanka u bixiyay mar horeta kadibna uu naxayaa gabadhiisa ayuu raadinayaa baahiladana sidaas ay faraxsan tahay gabadhi waa tan kaligeed ay wadada iska wareegaysaa ay iska ooynayso meelay aad ma taqaano waxa way guriga waa laga soo buriyay दूर न जाओ तुम aabeedna kana ayada ay soo raadiyay laakiin wuxuu ma arki doono kadibna dadka wadada mara ay weydiinaya wuxuu leeyahay gabar yar ma aragtay saaxiibow oo xogaa weyn ma arkin ayuu leeyahay laakiin nasiib xumo इतना दूर न जाओ तुम hooyada waxaa bombil ayay ku dhiilaysay bombil waxa iska la gabadheeda laakiin waxa soo xasuusinay gabadheeda waxay sunaysay dulmi iyo sms habeenadeena waa tan u jeedaa kadib bombil ayay ka googoynaysaa oo ka haleynaysaa कितना ना होना कभी तू मुझसे habeenadii waa soo xanaaqday waa soo orday bombilii uu maatay way fiirisay markay fiirisay waxa waaye ay aragtay in ay goosi maxay sameyn doontaa bal arag oo hooyada dhan gacanta inay ka qabato waxa dhici doontaa naga soo bax banaanka naga soo bax banaanka ay u saari doontaa बाहों में तेरी बाहों maamadan way diidaysaa waxay leedahay warsiida kadibna ayada xoog ay ku soo wadaysaa waxay leedahay soco ay leedahay banaanka naga bax banaanka ay u soo saaraysaa hooyada marka hore ninkii hooyadeed badbaadinayay gabadhiisa ayay ku dirtay sidaas ayaa banaanka loogu saaray gabadhii haatan waxay maraysaa in hooyadeed ay banaanka u bixiso ee guriga ka dhacdayso maamadina sidii ay ku xanaaqday oo iskaga tagtay qoftan fiira suura meel laga gaaray waa la oyno waaw hooyadina way baxday gabartiisina waa soo waayay ninkan wuu iska oynaa marka gabadhu way oynaya marka ninka wuu soo fiirinaaso iyada oynayso kadib wuxuu ku leeyahay maxaa kuu dhacla oyne kadib waxay leedahay hooyo way baxday guri ma joogto है तुझे yaah ayuu leeyahay maxaa intee aad ayuu leeyahay तुझको देखे बिना waxay leedahay marka qaaqaani guri iyaga joogin ayaan arkay guriga oo kaga fiirin oo ka waayay ayay leedahay waana beenteed ayada bursay ninkan waa iska oynaa marka maxaa yeelay gabadhiisana uu waayay maamadii jirneedna uu waayay way soo istaagay gacanta ay garab ka saareen kadibna asini waxaa waaya naxariis ay dareema xoogaa waxay leedahay marka waa la helaa caadi iska dhigay ay leedahay oonin waa raadinaynaa si wada jir ayaan raadinaynaa hab ayuu siinaa intaas ay rabto ay dhan maamadina guriga ka saartay gabartiisana guriga ka saartay intaas ay raadinaysay musiibada guriga ku jirta marka waxaa waaya musiibo yar maaha मैं तेरी बाहों में मुझे हर पल रहना है labada nin u jeediin waxay arkayaan gabar meel iska fadhiso oo iska oynayso waana tuugo labadooda kadib waxay leeyihiin markaas gabadhan dhufan ay leeyihiin way soo tashanayaan mara ayay wax u soo marinayaan sun kadibna gabadha ayay qabanayaan afka ayay u saarayaan si u suuxdo meelaha ayay iska fiirinayaan dad inay arkaan ay diidayaan gabadhi markay san ku saareen way suuxday gabadhi laakiin waxaa u jeedo maamadii oo iska soo lugayso oo wadada dhexdeeda iska dhex marayso ayaa aragtay way soo ordaysaa si ay ugu celiso ना होना कभी
way umaanay kadibna waxa waaye way feerfeeraysaa way dilay xalaa siidaay gabadha oo qawana oo iska tuura marka dhulka ku dhacay maamada wili kama quusanayso in ay gabadha badbaadiso dhagaxyo ay qaadanaysaa oo ku tuuriyanaysaa ayagana waxa waaye way cabsanayo waxay leeyihiin wareerka meesha ka cararni gabadhii ayaa sidaas ku badbaadisay maamada balse gabadha way suuxsan tahay oo sun ayaa sanka loo saaray maamada marka way fikiraysaa xillada marka biyo ay u doonaysaa biyo ay u doonaysaa u rushayso ee uu soo kacdo hurdada ceelka ay aadaysaa biyo ay gacmaha ku soo qaadaysaa kadibna way la soo gaaraysaa gabadha oo markaasna wejiga ay u fadhinaysaa si ay u soo kacdo gabadhi laakiin nasiib wanaag way soo kacaysaa indhaha ay kala qaadaysaa kadibna way fadhiisanaysaa maamada gabadhi waxay leedahay marka maxaa intuu keenay waxaa guriga ugu soo tagtay leedahay laakiin gabadhi ma ogeyn in la soo buriyay maamada oo tii gaabneed ee guriga soo burisay kadibna hab ayay siinaysaa maamada laakiin naxariista ayaa ka badatay inkastoo ay laakiin niyadeeda maqan tahay maskaxdeeda maqan tahay haddana waxaa waaye naxariista ayaa ka badatay ninka shaqo ayaa uu soo diyaarinayaa asagoo bixiro wuxuu arkaa saakadii oo gabadhiisa soo gaday saakadii gabadhiisa u soo gaday ayuu arkay oo markaa weli gabadhiisa aysan gashanin balse isku faacaysay wayna ka heshay gabadha laakiin nasiib xumo gabadhii hadda way maqan tahay oo ninkan meel ku moogo gabadhiisa oo ka murugoonaa marka arrintaas gaabiin waxa waaye kor ay ka arkaysaa saakadii maxaa sameyn doontaa bal fiiriya kadibna waxa waaye ninkan saakada meesha ayuu saarayaa shaqadiisa ayuu iska aadayaa soo murugsan oo macnaha ka walwalsan gabadhiisa meesha ay jirto saacdan qofta way imaanaysaa saakadii ma ka heshay ma way saakadii ay isku afacaynay waa la gashanaa saakada ayada ku yaacaysa maadaama guriga ay ka saarto gabadhii mid waa isku facayso qosolkeeda ayaa baxay laakiin musiibada gabadhan ay soo wado musiibo yar maaha gabadha marka maamadii ayay waxay u doonaysaa raashin cunto baahi ay dishay meel kasta tagto waxay leeyahay soo naga tagaa leeyahay baar ku siimeen maamadii meeshan gaajo ayaa hayso oo meel kasta ay tagto waxay leeyahay orad naga tagaa leeyahay lacag haday haysanin wax kuma siinay marka dambe waxay tagaysaa maamooyinka waxa waaye hooyo naxariista ayay ka badatay kadib waxay siinaysaa waxyar ay meel u shubeysaa way soo siinaysaa kadibna ayadoo faraxsan ayay u soo qaadeen marka maamadii meesha fadhisay maamada marka aad raashinkii loo keenay way yaabay oo farxaysaa kadibna waxa waaye afka ay u gelinay kadibna ayayna fasheeday afka markeeda afka u gelinaysaa oo gabadhii ayay siinaysaa raashintii markii ay raashinka cuneen ayay darjiinkan soo fadhiisteen oo halkan ay markaa jabi ku qaadanayaan maamada xoogaa maskaxda ayaa looga jira oo ma fiyo abaaheyle waa kanaan dooskiina ma ay la wareegtay oo gabadhiisa ninkan jiifa jirtay laakiin hadda maxay soo wadaa maadaama labadiiba guriga ka saartay waxay la taaba haddana ninkan inay disho oo markaa asa xataa meesha ay ka bixiso bismillaah see u soo socotay ugu dambeyn waxay isku dayaysaa marka inay disho ninkii gabadhii iyo maamadii guriga ayay ka saartay balse markaan waxay rabtaa oo qorsheynaysaa inay disho ninkii